qisada maanta idin haya waxay khusaysaa wiil iyo hooyadii oo khilaaf dhex maray. halkana maanta wuxuu yimid wiilku inuu hooyadii weydiisto inay saamaxdo. sheekada dhan hadda idiima wada dhammaystiri karo, laakiin hadda aanu yeedhno midxad Safwan Muxyidiin la soo dhaweeyaa. ahlan wasahlan, soo dhaw midxad. waan dhawaay mudane. halkaa ka waranna aad baan laha fiicanay maasha allah. weli maad guursan? may weli maan guursan. maxaad ka shaqaysaa markaa? waxaan isticmaal lugiiba kombiyuutarada. maskaxdaada waa kombiyuutar micnaha? haa, waa kombiyuutar. kalgacaylna? haa, wuu ku jira kalgacayl. midxad wuu guursan rabay. wuxuu la noolaa hooyadii iyo walaashiiba. maalin maalmaha ka mid a wuxuu jeclaystay inuu guriga keligii lahaado, uu keligiina ku noolaado. guriguna waa gurigoogii waa biyuhu uga dhintay. waxaanu go'aan ku gaadhay in hooyadii iyo walaashiiba ay ka tagaan guriga, ay tagaan tuuladii ku noolaayeen. waxaanu doonayay inuu halkaa ku noolaado. runtii hooyadii way ka cadhootay, carruurtiina way ka haysatay, waxaanay ku noqotay tuuladii. isagii haddaba guurkii uu rabay inuu guursado uu ku guulaysan waayey oo muu guursanba. markii uu arrinkaasi u suurtageli waayey, wuu haddana wuxuu ka dalbaday hooyadii inay ku soo noqoto gurigii isagii walaashii Khayla. hooyadii waa ka diiday arrinkaa, wayna u cadhaysneed, wayna ku gacan saydhay. muddo 2 sano ah ayaa ka soo wareegay, ismayna arag hooyadii. maanta ayuu nasiib u yeeshay inuu yimaado barnaamijka Musaamax Kariim. waxaanu doonayay inuu ku yidhaahdo hooyadii, gurigu waa gurigaaga, hooye ii soo noqo. anna hooyay waan isbedelay. soo sidaa maaha midxadow? haa. ma hooyaa sidaa lagu sameeyaana? waan ku khaldamay arrintaasi oo aad baan uga qowlay. laakiin sabab aad u samaysay waxaa kugu kalifay inaad hooyadaas aa yeesho? macid baa kugu qasbaysay? sidaas ma dhacday. ma gabadhaad guursanaysay ayaa kaa dalbatay? markii hore shardiga ma dhigin, laakiin markii dambe ayay shardiga iga dhigtay. waxaan igu tiri hooyada iyo walaalada guriga dhexdooda ima joogi karayaan, kuna noolaan maayaan. hadda adigu hooyadaana tuuladii baad ku tuurtay, adiguna maad guursan? anigu hooyadii maan tuureen, laakiin duruftay baa saamix weyday. waxaan salaa guri kale karee, saasna u dhacday. aniga lafteeda culays badan baa hayey, weliba gabadhaan salaa guurso ayaa aad iyo cadaadinaysay. in badan waan isku khilaafnay iyada lafteeda arrintan. aniguna hooyada waxaan u sheegay inay sababta awgeedna guursan waaya tahay hooyadii sababteeda. gabadhuna aanay ogolayn inay aniga yar noolaato. waxaan hooyadii ku hooyo tuulada iska tag si gabadhaan guursado. waa imse jir hooyaday? waa imse jir hooyada? waa 50 jir weeyaan. ma 50 jir ayaad u dirtay tuuladiina ku noolaato ood tuurtay? weliba hooyadaa weli way yar tahay. anigu waxaa marka hore u soo jeediyey meesha dadka waaweyn lagu xanaaneeyay inay tagto, laakiin wiga diiday. waana ii cadhooto, way iska baxday. aniguna sidii baan shaqadeeda ku tegey. maalintii baan soo noqdayna gurigii kumaba aragba hooyo iyo walaaladayba. meel ay tegeenna waan garan waayey. anna aad baan uga naxay inay saas sameeyaan. waxaan isku dayeyna abtigay iyo habeerartay arrinta ay galaan oo ay raadiyaan, oo hooyo ay la hadlaan, oo ay dejiyaan, oo ay la heshiisiyaan. hooyana cadhay maalidka kaga tagtay, waana cadhaysan tahay. sidaan arrintan waxaa la noo. waxaad doonaysaa aan ku tiraahdo hooyay kaalay oo ku soo noqo gurigaagii? haa. aniga hooyada baa nolosheeda ugu muhiimsan. miyaanad walaalada u xiisin? walaashaa Khayla da'deed waa imse jir? waa 15 sano jir weeyaan. 15? aad buu yartaa. Khayana da'deed waa imse jir? walaasheeda kalena waa 20 jir. 20 jir oo adiguna imse jir baa tahayna? yani waxaad ku leedahay kaalay ku soo noqo? waxaan doonaya inaan u sheego wadhado walaal madaxay saarantihiin, gurigiinni soo noqda. hadda waxbaad baratay. hadda fariintii waanu dirnay hooyada, bal isla wada aragna inay ogolaatay inay timaado istuudiyahan iyo in kaleba. ahlan wasahlan Kariima, soo dhawow. waan dhawahay mudan, waad mahadsan tahay. soo dhawow oo soo fadhiiso. waan dhawahay mudan. iiga waran howlahaagu waa? wallaahi alxamdulilah. maxaad u timid inaad ku guulaysato milyankii? hadde oo lacag yaa diidi kara. nasiibkaagu ma wanaagsan yahay markaa? alxamdulilah. wax walba miyaad ka jawaabi kartaa? waa aqoontaada aad nugu fiican tahayna. koley waa la isku su-aasha ugu dayaa horeysa, imise awlaad baad leedahayna? 3 baan leeyahay anigu. maasha allah. waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso markaad halkan soo gashay, talow yaa kuu yeedhay? yacni qof adiga kuu yeedhay micnaha? haya waan garanaya, koley waa adiga unte. laakiin qof baa jira aniga ii kaa soo wakiishay inaan adiga kuu yeedho. markaa waa qof aniga macluumaadkaagii siiyey, magacaaga iyo meeshaad degan tahay. dadkii fariinta ii waday su-aashaa waan weydiiyey.
sir baan ka dhigaytaa inaan u sheegin qofka ma ka heshaa kadiska adigu haa ma doonaysaa kadiska inaad dambe aragto haa balaan arko shaashadda haddabna la eeg halkanna maan imaadeen haddii aan isaga isleeyahay suurtagal miya ma runba haddii aad ogaan lahayd inuu isaga yahay inaad timaadeen barnaamijka haa imaad dhahdeen mahadsanid may kuma nidhaahdeen waayana isagu waa waalid caasi wiil caasiya haa walle waana inankaygii baleeg isaga wejigiisa wax isbeddela ma ku arkaysaa haa wejigiisa iyo timihiisa daahii baa ka tegeyba ilaana waa waalid caasi miyuu kala qurux badan markaanu yahay gacanta ku hay Is isbeddel kala ku xataa aragtaa? timuu lahaa markaad adigu la joogtay uu dhalaalayay oo qurux badnaa laakiin imika waa isbeddelay soo maaha haa soo sidaa maaha wuxuu kuu soo diray fariin ayuu kuu soo diray madxad anaana kuu akhrinayaa hadhow ayaan ka wada hadli doonnaa waan ogahay anuu sheekada isaga u wada hadalnay wuxuu ku leeyahay hooyadeydii qaaliga ahaydee dunidu qiimo aniga ilama lahaa meel adugu aad ka maqan tahay ambase aanad joogin hooyada ugu qaalisan adduunka ah in badan ayaad igu soo rafaaday aniga hooyoy in badanna waad i xanaanayn jirtay hooyadeyda qaaliga ahaydee in badan waad isoo xambaartay hooyadeyda qaaliga ahaydee waxaasoo dhan aad ii samaysay waxaan kuuga abaalguday si xun iyadoo ahayd hooye macaan qaaliyey inaan madaxayga dushiisa ugu saarto ciqaabta igu weyn ee nolosheeda ii soo martaa waxay tahay fogaanshahaad iga fog tihiin adiga iyo walaaladayba hadda ayaan gartay qiimahaaga iyo wanaaggaagaba waxaanan ogaaday si kastoon u weynahayba inaan hooye ka maarmi karin hooyadeedii macaaneyda qaaliga aheeday cashar ayaan bartay weliba dunidu i bartay waxaanan maanta diyaar u ahay inaan kuu adeego mar walba lugahana aan kuu dhaqo intii noloshayda ka hadhay waxaan maanta u imid halkan hooye macaan dadka hortooda inaan ku dhaho hooyoy iga raali ahow waan khaldamee waanan kuu baahanahay hooye macaan qaaliye walmusaamax kariim hooyadeedii macaaneeda qaaliga aheedee ma dhammaysta aniga lagama yaabo inaan saamaxo ma laga yaabo ninkan anigu inaan saamaxo wuxuu igu sameeyey ilmo hooyadii ku sameeya ma jiro marka hore su-aal baan ku weydiinayaa ma jirtaa wax isagu kuu geysteed ilaawi kari weyda adigu matalan maya inuu gacan kuu wax qaado gacana kale. iimuu qaadin laakiin dee wuxuu igu sameeyaaba gacan ka xuma ma jirtaa markaa aflagaado iyo wax kale kuu geystay haa kollay taasi way jirtaa anigay aabbihii waanu isfurnay anigaana soo koriyey 10 sanno ayuu inankaygaasi waalid caasi igu haa mas-uuliyadda Anna waanu reerka ayuu hayay adkaysan isagu markaa jiray. miyaa haa laakiin anigu in badan baan u samra in badan baan u samroon idhi waa inankaagii isagu mar walba uu igu dhib badnaa markuu isaguna taabo qaaday ee nin xoogle uu noqday ayuu anigii wuxuu igu qabsaday aabbahay mee wuxuu mooday inaan anigu aabbihii ka eryey isaga naftirkiisu sida warqadda ku qornadu noo sheegay wuxuu yidhi si kastoon hooye u weynahay kaama maarma anigu adiga weligeyba inuu nin weyn noqdaan la doonaya oo uu carruurta ila koriyo anigana garabkayga noqdo anigu waxaan la rabay hormood inuu noqdo carruurtooda waayo muu jirin aabba carruurtan ila korinaya waxyaabahan ugu dulqaatay aan islaa wuu isbeddeli lama soo koobi karo mararka qaar waxaaba dhici jirtay inuu isagu igu qayliyo anigoo isagii dhalay oo fadeexaddayda ay jaarku halkaa ka daawadaan mararka qaar waxaa dhici jirtay intuu qayliyo inuu albaabada qab nagaga siiyo oon xataa anigu mar gacanta waxay kaga dhaceen si xun buu noola dhaqmi jiray gurigii oo dhan albaabadii buu ka jabiyey dee waa kaase gurigiinna hablaha joogaa dubbila albaabiye sideen u noolaan karayni aniguna waxaan ku idhi haddaad aniga sidan araggaygayo u dhibsanaysid aan iska tago maalin walba sidan jaarku naguma daawan karee isaguna iska deg buu igu yidhi wuxuu isagu sidaa noo dhibaba markii dambe gabadh bay isbarteen muddaanay wada sheekaysanayeen kadibna wuu ii yimid waxaanu iguri gurigan hooye gabadh baan ku guursanayaa adigaa fuduuda iska bax gabadhayduna shuruud bay sidaa igaga dhigtay wuxuuna igudhi meelaha dadka waaweyn lagu dhaqaaleeyo tag saasuu noo gala haa anigu waan weydiiyey oo arrinkaa markuu iga sheekeynaya baan ku yidhi hooyadaa waa mise jir wuxuu igu yidhi 50 markaasaan ku yidhi anigu miyaan weyna hooyada ay 50 mise jirta daa ayaad lay keenaysaa dhaqaalayo la meelaha ituuraan gaadhay
isagaan cimrigaygii ku soo qaatay isagu way sheegay arrinkaa wuxuuna igu yidhi waan khaldamay oo arrinkaa ulamaan jeedin waan maqlay siduu yidhi isagu anigu carruurtii ayaan iska kaxaystay waxaanan u tegey walaashayana ubadkaygii wata qof carruur ubad haystaana reer lama deganaan karo markii dambe magaaladii oo dhowaa baan iskaga tegey oo tuuladii baan ku noqday anigoo weliba halkaa gurigaga horray markii xaalku sidaa muddo ahaana anigu qof faamiligaa baan guri la karas oo aan qol la degay aniguna gabadhaa been baan u sheegay waxaan kudhi inankaygii baa ii shaqaynay lacagiisu diray iyara sug si ay wakhti yar ii siiso aniguna markii dambe shaqaan raadsaday oo anigaaba meelaha ka shaqeeyay aan kuu sheego haddaba si wax u dhaceen labadaa sano uu soo baraarugay markaa ma imikuu soo baraarugaya way dhacday waa suurtagal ha oran ma dhici karto way dhacday ha oran ma dhici karto kani waa inankaagii oo haddaa soo koriyey qof walba insaana waana khaldamaa waana ka soo noqdaa waanu ka qoomameeyaa wixii uu sameeyey hadday noqotaba gaf uu waalidkii ka galay sida hooyo aabbo iyo wixii kaloo la midaba khaasatan weliba hooyo adigu waad u cadhaysan goormuu aniga ii soo raadiya xaq baad u oo leedahay markuu ii tuuray anigu waan ogaay cid kalena uma baahna ilaahay baan u baahanay isagana ciqaabtiisa ilaahay baa marinaya wuxuu aniga igu sameeyeyna anigu waan ku habaaray oo uu iga shaqaystay isagu markaa haa seesku ogaatay markaa adigu inuu baadilmay isagu muuqiisaad ka garanaysaa inuu baadilmay aniga kani inankaygii markaan ogaa ma aha kani isagoo weliba xaalkaa igu sameeyey ayaan anigu waraysan jiray xaaladdiisa oo dadkaan weyddiin jiray ilaan anigaa dhalay waxaanan ilaahay uga bari jiray siduu doonabaa u xumaaday in ilaahay aanu habaarkaygu u aqbalin uma madxaday bal isaga fursadaan siino uu kugula hadlo fiinaan lahayd inaan labadiin wada eegno bal isagu wax ku hadlayo madxadow tani waa hooyadaa waa dhaawacan tahay oo dhibkaanaadaa u geystay aad baanad u dhaawacday maantana waxaad timid istuudiyahan aduu hor taagan malaa'iin qofka ku daawanaya oo weliba aad rabto inaad ku raaligeliso hooyadaa soo sidaa ma aha haa mudane hadal oo codkaagana kor u qaad u sheeg waalidkay ballaqso anigu waan khaldamay igaralle ah hooyo xaq baad igu leedahay markaad iga fogaatay waxaan hooyo ay ogaaday qiimahaad leedahay wax badan hooyo wax isku day inuu ku raali geliyo waxaan kuu soo diray aftayaashay waanad hooyo igu diidday hooyo anu waan khaldamay igaralle ah hooyo anigu wax badan waan soo bartay intii aan kala maqnayn waxaan hooyo dareemay maalintii aan ku waayay adiga hooyo qiimahaad leedahay hooyo anigu markaan ku arki waayey hooyo dunidii mugdibay noqotay adigu hooyadii baa tahay qof kastaada hooyo iga qiimo badan anoo inankaagiya ayaad wax kasta hooyo igu aamintay hooyo waadna soo korisay aabbala-aan dhib badanoo hooyo waad noo soo martay hooyo anugu markaan yaraa waxaaso dhan waan dareemayn laakiin maanta waan fahansanay waana dareemayaa hooyo waajibkaad igu leedahay hooyo markii gurigaan adiga kaa saaray aan siri guurso waxaan dareemay mugdiina ku jiro gabadhiina waana kala tagnay hooyo meheradda waga xidhantay shaqadiina oo laga soo eriyey hooyo waxaan dareemay waxaasoo dhibaato waxay ku dhacayaan inay tahay gaaradeeda kaa shaqaystay hooyo haddii maanta galbigay tagnan lahayd waxaasoo dhibaato hooyay may soo gaadheen hooyo markaad la joogto adigu waan qurux badanahay qof jirana waan ahay hooyo wax maanta dareemayaa wax kasta oon haysto guri inaad hooyo iga qiimo badan tahay la jooggaagaan u baahanay hooyo waxaan hooyo doonayaa hooyo inaad cafisid hooyo xaq baad igu leedahay adigu hooyo hadal dee maxaad kalood ku raaligelinaysaa hooyada way kuu cadhaysan tahay anigu waan khaldanahay haye dabadeedna maxaad ka codsanaysaa adigu hooyo waxaan doonayaa hooyo inaad ii soo noqotid maxaad tirinaa hooyo waxaan doonayaa hooyo inaad ii soo noqotid oo hooyo kula noolaado inay kuu timaaddo adiyo walaalada miyaa haa waxaan doonayaa hooyaday iyo walaaladayba inay soo noqdaan oo la noolaado may dhici mayso taas waan ka xumay anigu sheeko yar baa kaaga sheekaynaya wiil dilay hooyadii haa hooyadii ayuu dilay muddo sannada markii laga soo wareegay ayuu u yimid inuu raaligeliyo waa raaligeliyey iyaduna way saamaxday haa adigina albaab buu jebiyey daaqad buu jebiyey hooyadii baa tahay khalad uu kaa galay waa xaq waa ognahay haddii booska anigu albaabka aan ku jiri la anigaba wuu dili lahaa way dhici kartaa waa xun yahay wuu khaldan yahay oo xaq baad u leedahay inaad ka cadhooto si kasta ahaato laakiin wuu kuu soo noqday inankaagii ma wuxuu leeyahay raalli ahow madxad hooyada khalad weyn baad ka gashay
waad arkaysaa annaguna waa la hadlaynaa ee si fiican u raaligeli hooyadaa go'aankeeduna waa adeegay hooyadaa bal iskudaygaagii hore waa guuldaraystay anna waan guuldaraystay bal hadalkii kuugu dambeeyey bal la hadal intaasaan ku guulaysanaaye hooyo bal hooyo soo xasuuso wakhtigii hooya nolosha inoo fiicnayd saan isku ahayn adiyo walaaladayba in hooya wax walba dii keeni jiray hooyo anigu qof fiican baan ahaa wax fiican hooyo waan ku samayn jiray hooyo markan yaraa hooyo haddaan xanuunsadana adiga hooyo murugoon jiray haddii hooyo waxaan jebiyona adiba hooyo misdhexi jiray oo issabi jiray hooyo maalintaad iga fogaatayna hooyo waan isbeddelo qiimaha kan hooyo ogaadi hooyo isaamax hooyo soo noqo hooyo waxaad arki doontaa sidaan hooyo isku beddelay hooyo markaad aragtay hooyo aniga wanaagsanaaday adiguna hooyo qalbigaa ku qabowi doona waana dareemi doontaa hooyo wanaagkayga hooyo adigu hooyada baad tahay hooyo maad hooyada xiisayn adigu hooyo isaamax ilaahay ha ku saamaxo inankaygiyo mudane joorjiyow haa hooyada laabteed ma geli karaa marka hore ha ku saamaxdo markaasaad u iman doontaa haddaanu tago waxaan laga yaaba hooyada inay saamaxdo maya intaan u tegin waa in iyadu marka hore ku tidhaahdaa waa ku saamaxay markaana gidaarka mayd iga hor qaadaynaa kadibna waadu imana gacmaad ka dhunkan saanaad ku heshiin doontaana hooyo isaamax ilaahay ha ku saamaxo inankaygiyo hooyo waa ku inaynu baryaa inagiisa isaamax saamaxno xaq baynu u leenahay oo inagu bini aadan baynu nahay waa runta ilaahay baa yidhi isi saamaxa saan Wa aniguna nicma billah. inagu saamaxo hooyo dhabtaadaan xiisay hooyo dhabtaadaan rabaya laabtaadii hooyo haddaad cafin weyday maanta anna hooyo nafteeda cafin maayo hooyo gafkaan geysti waan ka soo noqday hooyo waan ku barayaa hooyo isaamax khalaas maxayna aniga wallaahi qalbigay ooyey garanna maayo anaa waxaan kuu sheegaya sameeyo waxaad samaynayso waanan dareemayaa qalbigaagu siduu dhaqdhaqaaqayo u ilaahay ha shaqaynayo saamaxo saamaxaysaana isaga waa ilaahayna inankayga ha saamaxo iyo dhammaanba inta gaf gashaba aniga weli adigu sama way saamaxday igu yara adagtayna ilaawo adiguna ma saamaxaysaa imin mana ilaawi karo wixii aniga i soo maray ha ilaawin wuxuu ku soo maray laakiin hadda adiga awgaa baan u saamaxaya walmusaamax kariim ugu horeen ilaahay dartii u saamaxa waayo waa adiga waan inankaa saamaxay weeyey. anigu والمسامح كريم هذا هو هلا تجي Thank you.